waa muuqaal aanan u baahnayn fasiraad badan, waayo dadka garashada wanaagsani waxa ay aad uga dharagsan yihiin inuusan qofna kala dooran karin habka loo abuurayo, balse uu Ilaahay yahay awood badane wax kastaa fala. waa 12 sano jir, magaciisana waa Taarik. waxa uu leeyahay fara ka xajmi weyn kuwa caadiga ah. wiilkan habaryartii waxa ay dhahdeen markii uu dhashay farihiisu waa ay weynaayeen, markuu da'diisa siyaado farihiisuna way ballaaranayeen. aabbihiis markii uu noolaa wuxuu geyn jiray dhakhaatiirta deegaanka, balse markii uu dhintay hooyo keliya ayaa u soo hartay, mana helo adeeg caafimaad oo u baahan yahay wiilkan. Taarik walaalkiis ka weyn Haryan waxa uu leeyahay dhibaatooyin badan ayuu la kulmayaa. way ku adag tahay inuu keligiis qubaysto ama inuu dharka xidho, sidaa daraaddeed aniga ayaa caawiya oo xaalkiisa ka warhaya. sababtoo ah isaga oo sidan ah ayuu nolosha la dagaalamayaa, wuxuuna wajahayaa wax kasta. Taarik waxa uu leeyahay aad baan u daayaraa markuu aabbe ii kaxaynaya dhakhtarka. waxa uu markaas dhakhtarka noo sheegay inaan la kulanno dhakhtar khibrad u leh arrintan, laakiin ma aynaan haysan lacag la igu daaweeyo. haddana aniga waan koray, haddii aan in yar socdo gacmahaygu waa ay xanuunayaan, dhibaatooyin badan ayaan wajahayaa. dadku waa ay igu maadsanayaan markaan guriga ka baxo, markaan suuqa tagana waxay dhahayaan eega wiilkii gacmaha waaweynaa ayaa yimid. qof kastaa wuu iga cabsanayaa, waxay leeyihiin waa maxay waxaan, orodoo isa soo daaweey. dhakhaatiirta ma fahmayaan xaaladda aan ku suganahay. dhakhtarkan waxa uu leeyahay Taarik problemka haysta runtii annaga waxba kama qaban karno. weli ma aynaan arag bukaan isaga la mid ah. kiisas fara badan waan arkay, balse dadkaas cudurka cagamaroodiga ayay lahaayeen, xaalkiisana kuwaas ayuu iila eg yahay. waxaa muuqata in dhakhaatiirtu ku wareersan yihiin xaalka Taarik. wuxuu dhahay dhakhtarkan fursaddu way yar tahay, laakiin wax kastaa waa macquul, waayo wakhtigan la joogo saynisyahano badan ayaa baaritaan sameeya, teknoolojiyad cusubna waa timid. sidaa darteed waxbaa dhici karaa, laakiin waa inuu booqdaa dhakhtar aqoon durugsan u leh arrintan. Taarik walaalkiis ka weyn ayaa isagana rajo ka qaba inuu heli doono walaalkii gargaarka uu u baahan yahay. Taarik laftiisa wuxuu dhahay haddii aan kaalmo caafimaad heli lahaa, wax badan inaan qabto ayaan awood u yeelan lahaa. waxaan noqon lahaa qof wax soo saar leh oo shaqaysta, nolol maalmeedkana u soo dhiciya reerkiisa iyo naftiisa labadaba. daba daawada ogsoonow, cidna looma hadiyeen cillad iyo dhibaato, ee waa cibro qaadasho iyo xigmad casiis ina tusaayo. fadlan muuqaalkan sii sheer garay si asxaabta kale ay u daawadaan.